بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ولا ليال ما أنت كلمتنا أما افتتاحنا نحو كساليسن يهي كتابك الله يقانه inaan fawaa-idiisa ama aynu waxa ku yaalla wax ka faa-idno oo la yidhaahdo xisnul muslim. xisni waa deyr, almuslim qofka muslimka a deyrkiisii, deyr ama derbi ama dhufays intaa ratid. innagu deyr waxaan u naqaanaa guriga deyrkiisa korka ka ilaaliyo saa ugu wareegsan, yacni saas waa lagu fasiraa. dhinaca bariga baa lagaga fasiraa deyr. waxaa kaloo la dhahaa dhufays, qofka meeshuu ku gaashaanka wax isaga dhigayay oo dhibaatooyinka iyo waxyaalaha gaashaan buu u yahay xisni. derbina waa la iskaga fasiri karaa qofka uu ku gabanayo xisnigaas. marka kitaabkaas xisnul muslim ayaa la yihahdaa. marka waxaa ku taalla adkaartii qofka maaragta, waana kitaab yaroo kooban oo qofka jeebkiisa qaada, qofka laasima ama wax ka barta oo xifdiyana fawaa-id fara badan ayuu ka helaya. waana dikri. kitaabka waxaa laga soo koobay dikriga iyo ducada iyo cilaajka. waa mukhtasar laisu keenkeenay, waxyaalo meelo badan ba la isaga keenkeenay, sunnada, aayaadka, meelahaas o dhan buu sheikhu isaga soo gurguray. marka kitaabkaasna waxaan rabnay aynu wuxuun ka daraasayno. kitaabka waxaa alifay saciid binu cali binu wahb alqaxtaani 1428. marka kitaabkaas oo dadkao dhanna ay yaqaaniin ayna wada sitaan intooda badan ayaynu rabnaa inaynu wax ka tiltilmaamno. adkaarta kusoo aroodhay min alkitaabi wasunna. marka fadliga uu dikrigu leeyahay aan soo koobno. fadliga uu leeyahay dikrigu waxaa ka mid a fawaa-idda dikriga qurbullah bidikrihi. ilaahay baa loogu dhowaanaya. qofku markuu ilaahay xuso ilahay buu u dhowaanaya subxaana wa tacaala. waxaa kaloo ka mid a waa unsi, waa weheshi. ilaahay qofku u weheshanayo markuu wardiyo adkaarta akhristo oo dikriga alla. mustanis lirabbihi, ilaahay buu markaa qofkaas weheshanaya. cidlinimadii iyo waxaasoo dhan buu ka weheshanaya. marka cadamu dikri, qofku markuusan awraad lahayn ama wardi gaara lahayn ama dikri lahayn, yacni waa bilaa wehel, istinaas ma haysto. marka qofka waxaa laga doonaya inuu leeyahay wardi khaasa. goortu shaqada dhameeyo, cibaadaadkasa dhameeyo, xoogaa yaroo wardiya oo gaar isagoo ah u akhristo oo qur-aan iyo adkaar iyo maaragtay uu leeyahay ayaa laga rabaa inuu sameeyo. maxaa yeele noloshaada ayaa ku jirta halkaas. qofka muslimka noloshiisa ku jirta inuu wardi iyo dikri la yimaado. waxaa kaloo iyadana laga qaataa laga faa-iidayaa dikriga ama wardiga in kitaabkaas ama adkaarta khulaasada la akhristo waa lafdigii saxiixa ah. marka qofka markii loo fasiro oo macnaheeda uu barto, macaankeeda uu arko, hadhow markuu akhrinayo ma laxninayo.
walidalik baa kitaabkaas muhiim uu noqday inaynu wax ka sheegno. sidaa daraaddeed marka dadku waa cabanayaan, waxyaalo badan baa laga cabanaya. qayb waxay ku leeyihiin niyow il baan ka cabanayaayo, meel baa laga qabanaya, waxay ku leeyihiin niyow waa lay ilay. qayb waxay ka cabanayaan nin xasad, qayb waxay ka cabanayaan nin niyow sixir, qayb waxay ka cabanayaan nin waxyaalo fara badan. waxaasoo dhan waxaa daawo u ah oo xijaab u ah oo aysan waxba ku yeelin dikriga ilaahi subxaanahu watacaala ama adkaarta loogu talagalay qofka muslimka inuu ilaaliyo. maxaa yeelay adkaartaasu qofka dhufays haddii laguu sameeyo oo adigu aad bilaa dhufays isdhigtid ama maaragtay laguu sameeyo waxyaalihii hubka iskaga celin lahayd, waxyaalahaasoo dhan oo aad adigu hadda bilaa hub la-aan socotid, hadda naftaada cid aanin ha dagaali. marka sidaa daraaddeed waxaa noogu kaliftay marka inaynu kitaabku waa mukhtasar, waa wada duuban yahay youtube-ka oo ku jira, laakiin si khulaaso ayoo kooban oo dadkuna ka faa'iidaysan karaan ayaan rabnaa inaan usoo koobno biidni illaahi ilbaari intii ay nala gaarto, haddii ilaahay noo ogolaado oo naftu noo saamaxdo. qofka marka wardiga ama dikriga akrinaya wuxuu ku sugan yahay nolol barakaysan. qofka adkaarta laasima wuxuu ku sugan yahay nolol barakaysan. qofkii adkaarta ka tagana waa qof qaafil ah oo baraka la-aana, baraka ma laha, shaqadiisu baraka ma laha, caafimaadkiisu baraka ma laha, hurdadiisu baraka ma laha, adkaar la-aan ba maarata ayuu ku sugan yahay. sidaa daraaddeed culimmadii waaweyneed oo salafu saalix iyo khalafkiiba waxay samayn jireen waqti gaar ah oo ay ku camiraan cibaadaadkooda. waqtiga 3 qaybood bay u qaybin jireen. 3da qaybood waqtiga u qaybiyaan wuxuu ahaan jireen qayb mar dadkii wax bari jireen, marna waxbay qori jireen, cilmigay qori jireen, marna ilaahay bay xusi jireen subxaanahu watacaala. ilaahay ayay xusi jireen subxaanahu watacaala. oo markaasay saciid bin musayib iyo rag badan oo ka mid a dadkii hore ee culummada waaweyne ahaa waxay samayn jireen waqtigooda 3daas u qaybin jireen. innagu maanta waqtigeena ma qaybinaa. haddaynu shaqayno shaqada dhexdeeda dikriga iyo wardiga ma akhrisanaa. haddaynu baxayna adkaarta ma laasimnaa. haddaynu seexanayna adkaarta loogu talagala ma ku seexanaa. weesaqab ma ku seexanaa. dhinaca midigtaa markaan u seexano ma akhrisanaa adkaartii. waa in naftaada bal qof walba naftiisa inuu dib ugu noqdo ayaa lagama maarmaana. dadkii marka culimmada oo waaweynaa oo maarata taabiciintii, saxaabadii nebiga calayhi salaatu wasalaam, taabicu taabiciintii, culimmadii qadiimka ahayd, salafkii, intii oo dhan saasay waqtigooda u camiri jireen. 3daa qayb: xilli ay dadka wax barayaan, xilli ay dadkii diintii u qorayaan oo u nashrinayaan, iyo xilli ay ilaahay xusayaan subxaanahu watacaala. sidaa daraaddeed marka walaalayaal dikri maxaa la yidhahdaa? dikri waxaa la dhahaa kullu qowlin yuthaabu calayh. wax kasta oo lagu qowlo oo lagaa ajar siinayo waa dikri ilaahi subxaanahu watacaala. wakadalika cagsul kalaam maca kullu qowlin oo markaas aan waxba lagaaga qorayo, dembi lagaaga qorayo, isaguna waa dikri maaha. alqiyaas bilcagsi midka dhaha kullu qowlin yuthaabu calayhi waa dikri. qowl kasta oo lagaa thawaab siinayo oo ajar lagaa siinayo waa dikri. marka fadliga dikriga ayaynu caawa wuxuun ka dhahdhahayna. fadlu dikri qaala allahu tacaala, ilaahay wuxuu qur-aanka ku yidhi fadkuruunii ixusa adkurukum anin xusaya. qur-aanki waa dikri ilaahay, istikfaarti waa dikri, tahliishii waa dikri. tahliil maxaa la dhahaa? laa ilaaha ila allah, allahu akbar, walaa xawla walaa quwata ila billah, allahuma salli calaa muxamadin wacalaa aali muxamed kama sallayta. salliga nebiga calayhi salaatu waa dikri. washkuruu lii, igu shukriya, walaa takfuruunii, ha igu kufriynina buu ilahay leeyahy subxana watacaala. aayad kale ilahi wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu, kuwa iimaanka laga helayo, udkuru llaha, ilaahay xusa, dikran kathiiran, in badan. maanta qof walba naftiisa markuu u noqdo 24 saac oo soo maray
ilaahay intee xustay inteesa hadal kale ku jirtay ama kalaamu dunyaa ha noqdo ama laqwi kale ha noqdo markii laysu fiirfiiriyo farqi weyn baa kuu soo baxaya oo aan naftaada meeshay u badnayd hadalkeedu maanta sidaa daraaddeed haddii ilaahay uu jaanis ku siiyey oo uu ku nooleeyey waa inaad ilaahay subxaanahu wa tacaala u noqotaa oo ilaahay in badan u wardidaa subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu idkuruu llaha ilaahay xusa dikran xusid kathiiran oo badan waxaynu ognahay dikrigu marka uu fara badan yahay qofba midka uu fudud ayuu akrinaya subxaana allah wabixamdihi subxaana allahi alcadiim kalimataani khafiifataani xabiibataani ila araxmaan thaqiilataani ila almiisaan oo kamaa qaala calayhi salaatu wasalaam xadiiska bukhaariga u dambeeyey subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiim waxaynu ognahay dikriga ama wardiga qur-aankoo la akriyo ama adkaartoo la akriyo ama dikriga ilaahay oo la akriyo subxaana allahi walxamdu lilahi wax la midka shidaalkaa dooni mayaan carabkaa una dhaqdhaqaajisado ilaahay ku xustid marka ka waran adigoo wax aan shidaal iyo kharash iyo awood badan kaa doonin oo ilaahay kuu sahlay afkaagaan laga maqlay waa arrin la yaablan ilahay marka dikran kathiiran buu yidhi in badan ilaahay xusa laakiin maanta maxaa moodaa in la leeyahay qaliilan wax yar ilaahay xusa in yar salaad tuko hadduu adkaarta akriyo qofku burasida waxaa arkaysaa kuwa salaadii ka baxay oo iska cararaya adkaartii salaada kadib ma akrinayaan adkaartii bacda salaad subxi ma akrinayaan adkaartii bacda alcasr ma akrinayaan adkaartaasoo dhan qofka xijaab bay u tahay xisni bay u tahay il jinni insi xaasidnimo waxaasoo dhan ilahay kaga xijaab ilaahay in badan aan xusno subxaana wa tacaala walaalayaal waxaa nafteyda iyo naftiina u dardaarmay inaan ilaahay in badan xusno ilaahay subxaana wa tacaala aayad kale wuxuu ku yidhi isagoo ka hadlayay fadliga uu dikrigu leeyahay waaddaakiriina allaha kathiiran waaddaakiraat acadda allahu lahum makfiratan wa ajran cadiima waaddaakiriina allaha kathiiran ragga ilaahay in badan xusaya waaddaakiraati iyo gabdhaha in badan ilaahay xusaya acadda allahu lahum makfiratan ilahay wuxuu u diyaariyey dembi dhaaf wa ajran cadiima iyo ajr weyn aayad kale ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu ku yidhi wadkur rabbaka rabbigaa xus wadkur rabbaka rabbigaa xus fii nafsika ka xus tadarucan adigoo u tadarucaya wa khiifatan iyo adoo maarata si hoose u xusaya wa duuna aljahri idinkaan ku qaylinayn min alqowli hadalka bilquduwi gelinka hore iyo walaasaali gelinka dambe walaa takun ha ahaanin nabi maxamed min algaafiliin innagaa markaa laynoo jeedaa nabigeena sala allahu calayhi wasalam axaadiista markaynu fiirino muxuu ka yidhi arrintaas fadliga dikriga nebigu wuxuu noo sheegay sala allahu calayhi wasalam oo dikriga fadligiisa isagoo ka hadlaya inuu ku yidhi mathalu aladii yadkuru rabbahu waaladii laa yadkuru rabbahu mathalu alxayi waalmayit qofka ilaahay xusaya tilmaantiisu iyo qofka aan ilaahay xusayn waxay la mid yihiin kan ilaahay xusaya wuxuu la mid yahay qof nool oo shaqaynayo qofka kalena qof meyit ah ayuu la mid yahay meyit ayuu la mid yahay bukhaari baa xadiiskaa warinaya iyo muslim labaduba oo soo saara alladii yadkuru allaha fiihi haa waxay ahayd mathalu lbeyti muslim riwaayadiisa lafdigiisu waxay ahayd mathalu lbeyti aladii yadkuru allahu fiihi beytka ilaahay lagu xuso yadkuru allahu fiihi ilaahay lagu xuso iyo walbeyt aladii laa yadkuru allahu fiihi iyo beytkaan ilaahay lagu xusin oo qur-aan lagu aqrin oo adkaar lagu aqrin oo dikri ilaahay lagu aqrin fiihi mathalu alxayi waalmeyt bay guri nool iyo guri maarta aan cidi nooli jooginba bay la mid yihin marka haddaa rabtaan inaad mithaalkaa yeelataan aan ilaahay in badan xusno walaalayaal subxaana wa tacaala nabigoona sala allahu calayhi wasalam wuxuu xadiis kale ku yidhi alaa unabi'ukum bikhayri acmaalikum ma inii sheegaa camalkiina kan u khayr badan wa askaahaa cinda maliikikum ilaahay agtiisana ugu dahiroon wa arfacihaa fii darajaatikum
حق درجتنا أقص الرئيسة وخير لكم من إنفاق الذهب والورق إني كان خير بدن بحنت ذهبك إيو لعكت وخير لكم إني كخير بدن من أن تلقوا عدوكم إن عدو إن لكم لنتان وفتضربوا أعناقهم أقرتوا قراعدان ويضربوا أعناقكم قرتنا أي قراعان قالوا بلى نعم بينه الناس قال ذكر الله تعالى شيء انت كف اللي بدن وإلى ذكريس عربك وحكوا قادر مية سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم بالقلب قاقا بالعرب قاقا انت وقع عادي اسبوع كذبنا نلو ذاك وحاسو أركت سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم قلت دقاق بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله لقد هديت وكفيت ووقيت ويرنبي صلى الله عليه وسلم قفك مركو قريقسا كبحايا انتا دها وحا الله ورنيا والغو هنونية والغو إلالية والغو كافية شر دمانتس لباتا دمانتد والغا كافية بلله إن حريستي سفيرية وبسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة قريقا مركا كسبحان قارقا مركا دقاجس بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله حريستاس iyo xijaabkaas baa ilaahay noo sameeyey markaasaynu hilmaamayna markaasaynu ka tegayna intaas oo dhan in lacagta la bixiso in maaragtay waxaas oo dhan waxaa idinka khayr badan dikrullahi tacaala ilaahay dikrigiisa tirmidi ayaa warinaya ibnu maajah isaguna saas oo kale waxaa kaloo laga fiirin karaa saxiix ibnu maajah waxaa kaloo laga fiirin saxiixi tirmidi ayaa laga fiirin karaa وقال صلى الله عليه وسلم رسولك حديث كلا وحكويري إساقوا فضلك ذكرك كهليا يقول الله تعالى إلهي وحيري أنا عند ظني عبدي بي أنو ملها أدونكي وغملا يأكتس عيانه وحديث القدسي وأنا معه إذا ذكرني معي سعيانه مركئ بحصي فإن ذكرني في نفسه هدو نفتي سيغحصه ذكرته في نفسي أنك حصيه وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه هدو جماعة دحسيقا حسنا متك خير بدن أيانك حسيا ملأ وإن تقرب إلي شبرا هدو إيسو دوانا تاكو تقربت إليه ذراعا بعضا دواني وإن تقرب إلي ذراعا هدو إيسو دوانا تنهر وردن ذراع وردن وإن تقرب إلي ذراعا هدو إيسو دوانا تقربت بعضا دواني باع وإنت وإن أتاني يمشي هدو إيما لإساقو سعونا أتيته هرور أنا دقدقي أيانو إيماني حديث كاسنا بخاري أيا صوصار إيا مسلم لفظي لكن ولفظي بخاري سيدو كلا نبينا عليه الصلاة والسلام حديث كي عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا ننبا قالوا حلي يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي شرائع الإسلام كوا يغفر بدت علي فأخبرني بشيء أتشبث به أنكو عباديستو أنكو ورديو قال وحير النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال لسانك عربكاك يوكزول رطبا من ذكر الله إلهي الذكر يسا إنو كقويان يهي رطبا مد كقويان إنو يعني مد أفكا كوهي ذكر إلهي عربكاك يوسا كزولي تاس كدك بي النبي صلى الله عليه وسلم waxaa kaloo nabigu noo sheegay sala allahu calayhi wasalam isagoo ka hadlaya fadliga dikriga man qara'a xarfan min kitaabi illaah qofka akhriya hal xaraf oo ilaahay qur-aankiisa ka mid a falahu bihi xasanatun inuu xasanaad ku leeyahy waalxasanatu xasanaadkiina bicashri amhaaliha 10 jeer ba la laalaabaya markaasaa nabigu sii cadeeya wuxuu yidhi laa aquulu oran maayo alif laam miim xarfun waa hal xarf ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف سيداس أي النبي صلى الله عليه وسلم وحيري ألف كوا حرف ووحا لقوها لي حسنات وانا رسيل اللهوية لام كوا حرف ووسيل اللهوية ميم كوا حرف سيدا درادة مركة ولا ليال حديث كاسترمي دي بأساقنا صو صارية وحاك الله لقى في كرين كرا صحيح الجامع الصقير ساقنا لقى في كرا marka walaalayaal qur-aanku waa afdalu dikri illaah
ilaahay dikrigiis kan u fadli badan. qofka marka qur-aanka akhriyay wuxuu akhriyay dikriga u fadli badnaa. waxaa laga yaabaa intaasoo qof oo qur-aanka bartay inay qur-aanka aysan 24 saac waxba ka akhrin, inaysan wardi ka lahayn habeenkii, inaysan maalinkii wardi ka lahayn, bal inuu ilaaway intuu qur-aanka bartay. hada waa dembi weyn qofka inuu qur-aankii uu bartay uu ilaawo. marka walaalayaal dikrigu fadaaisha aadka u fada badan ayuu leeyahay, nabiguna noo sheegay sala allahu calayhi wasalam. waxaa jira xadiis kale oo tilmaamaya nabigeena sala allahu calayhi wasalam can cuqba binu caamir radia allahu canhu. can cuqba binu caamir radia allahu canhu qaala wuxuu yihi kharaja rasuulu llahi baa soo bax wa naxnu fi sufa faqaala nabigu wuxuu yihi ayukum yuxibu an yaqduu kula yowmin ilaa butxaan. meesha ayaa jecel soo walba inuu u kalaho ow ilaa alcaqiiq meesha la yidhahdo. fayaأtii minhu binaaqatayni kowmaweyni fii gayri ismin walaa qadicati rixm. laba halaadoo kursa waaweynna kasoo helaa isagoon qaraabana ku geyn kula dambaabin. markaasaan waxaan ihi faqulnaa yaa rasuula allah nuxibu dalika waa jecelnahay. qaala wuxuu yihi afalaa yaqduu axadukum ila almasjid, mu u kalaho qofkiin masaajidka falyaclam oo wax barto, falyaclama oo wax kasoo barto, ow yaqra'a aayatayni ama 2 aayadood akhriyo oo min kitaab illahi caza wajal ah, khayrun lahu waxay uga khayr badan tahay min naaqatayni 2 halaad, wa 3 khayrun lahu min 3 3 aayadood baa uga khayr badan, wa 4 khayrun lahu min 4 4 halaadna 4 waxaa uga khayr badan aayadood. wa min acdaadihina min alibil, yani geelaa loogu jeclaa markaas, nimcooleyda la dhaqdo. marka wuxuu leeyahy nebigu 2 aayadood la akhriyo ama 3 ama 4 aayadood baa intaasoo haladood kaaga khayr badan, ama aada cilmi aada baratid. sidaa daraaddeed marka nebigu wuxuu kaloo noo sheegay sala allahu calayhi wasalam man qacada maqcadan, qofkii meel fadhiista lam yadkur illaaha ilaahay uusan ku xusin fiihi meeshaasuu fadhiistay, kaanat calayhi min allahi tira. waman iddajaca madjacan, qofkii meel seexda oo lam yadkur illaaha fiihi aan ku xusin, kaanat calayhi min allahi tira, dembi bay ku ahaanaysa. marka walaalayaal waa inaanu dikrigii ku dadaalno. casharka ku xiga ayaynu isagoo faahfaahsan ayaynu kusoo qaadan doonaa. wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.